deegaanka tabca ee waqooyiga magaalada Ceerigaabo oo ah deegaan buuraley ayaa waxa ka kacay dab habeennimadii xalay kaasi oo ku fiday isla markaasina geystay khasaare kala duwan waxaana habeennimadii xalay deegaankaasi gaadhay isla markaasina bilaabay bakhtiinta dabkaasi fiday gurmad uu hogaaminayo isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Sanaaga kaasi oo watay gaadiidka dabdamiska iyo sidoo kale booyado inkastoo deegaankaasi u badan yahay buuraley aanay baabuurtu marin misana waxa ka qayb qaadanaya daminta dabkaasi gurmadada kaasi oo jaraya goobaha aanu ku fidin dabkaasi isuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Sanaag oo halkaasi ku sugan tan iyo xalay ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhnay waxana uu nooga waramay xaaladda dabkaasi deegaanku waa tabca magarad marka xirmoole la dhaafo goldhigna aan la gaarin halkii garcaws halkii hoos ugu beegnay har suuq loo yaqaanay hareerihii dhow dhaxaysay buu dabku ka soo bilowday uu go'aan yahay xagaasku ka boodiyo qowl laaga la yiraahdo daal ku fadhiyo buu madaxa la gaaray haye xalay labadii waanu baxnay waana joognaa aniga iyo xogayay gobolka iyo waa baxnay gaarigii dabdamiska waanu ka haysanay boodna waanu ka haysanay waxa naga daba yimid dawladda hoose maxamed xoogsade iyo qoliyo uu la socdo oo uu wato ayaa naga daba yimid marka har suuq meesha la yiraahdo baanu joognaa hadda aniga maxamed xoogsade iyo xogayayba maxaa dabkii ka qabateen ilaa hadda wuu socdaa dabkii waxa weeyaan dab ilaa 5 casho oo dambe soconayo weeye ilaa 100 nin baa jooga waa la dagaalamayna dagaal baanu kula jiraa hareerahaanu ka goynaynaa gaarigii dabdamiskana wuu geli kari waayay oo xagaafkii taagan yahay isagoo de kama bayri karo tabca gaariga waa taqaan sidaa laajigeed markaa raashin baan soo dalbanay iminka Ceerigaabo ka soo sidaan gaari raashin sida iyo gurmad kale madarmagana gurmad baa iga yimi qoladii ay ku jirto jabhadda ahayd oo aan iyada dhulka ka mid ah oo joogo waxaad iga warantaa dabku muxuu ka kacay dabku wuxuu ka kacay weli markuu aan baktiino aan dabka afjaro ayaa la isweydiin doonaa oo la raadinayaa wixii dabku ka kacay wixii sababay laakiin waxaanu ku jiraa horta inaanu dhulka badbaadino qaybta hadhay oo aanu dabka siixin ilaa intuu dabkani socday maantuu bilowday xilli mu soo bilowday xalay buu aad u socday oo dee dab waa taqaanaa inta uu goodayo xagaa oo dabaysi wado oo dabaysi laagi ku dhacaysay wado xagaaga ay sabada ahayd dhowr kilomitir ayuu markiiba boodayaa laakiin uu boodbooday oo maaragtay sheefka aad isuguma hayo uu boodbooday meel sheefka isku hayaana waa jiraa laagii ku beegnaa qool hoosiis loo yaqaanay iyo ilaa iyo har suuq meeshii loo yaqaanay yudo iyo hareerihii dhaxaysay intaa ka dhaxaysa weeye dabku dhulka uu farasaaray uu badan yahay laakiin ishaysigiisa uu ishaystaa uu maaragtay dhul badan baabiyey ma qabin waxaad iga warantaa xilli ma ku rajo weyntiin inaad soo afjartaan dabkani kolley anagu ilaa caawa waa joogaynaa waa inaanu ciidka kolley ilaa 5 casho cid baanu dhigaynaa ciidan baanu dhigaynaa ilaa 5 casho jooga oo deganaada oo marba afjara waayo xagaa baa jira wuu boodboodayaa ciidan aan horta 5 casho raashinkiisa u dhigno oo ilaa 100 nin ayaan u qorsheynay Cabdiraxmaan Axmed Star TV Ceerigaabo.